Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Bismillaahi raxmaani raxiim. Waxaan jeclaystay in aan idiin soo gudbiyo qayb ka mid ah waayihii iyo waqtigii muftigii weynaa ee Cabdilcasiis ibnu Cabdullaahi ibnu Baaz. Wuxuu ku dhashay dalka Sacuudiga, gaar ahaan Riyaad 1330kii. Wuxuu bartay Qur'aanka asagoo aad u da'yar, wuxuuna dadaal fara badan sii geliyey barashada diinta Islaamka ah. Muddo kadib, imaamku waxaa soo wajahay xanuun dhinaca indhaha ah. Marba markii ka dambeysa waxaa sii daciifayay aragtidiisa. Ugu dambeyn, imaamku wuxuu waayay araggiisa oo uu indha beelay. Intaa uma uusan harin dadaalkii iyo barashadii diinta, ee wuxuu juhdi weyn sii geliyey barashada diinta Islaamka ah iyo sidii loola dagaalami lahaa jahliga diimeed iyo bidcada. Ugu dambeyntii, Ibnu Baaz wuxuu noqday caalim weyn oo wax laga weydiiyo arrimaha diinta. Wuxuu bare diimeed u noqday arday aad u fara badan, kuwaasoo loo aayay waqtiyadii dambe. Wuxuu sii waday Ibnu Baaz cilmi baaristii iyo barashadii iyo baridii cilmiga diiniga ah. Wuxuu u guntaday oo habeen iyo maalin u soo jeeday sidii uu dadka u bari lahaa diinteeni suuban. Wuxuu aad u kala yaqaanay axaadiista, wuxuuna aad u kala saari jiray kuwooda daciifka ah iyo kuwa saxiixa ah. Ugu dambeyn, wuxuu madax ka noqday hay'atul kibaarul culamaa. Wuxuu kaloo madax ka noqday golaha joogtada ee cilmi baarista iyo fatwada ee loo yaqaanay lajnatu daa'ima. Wuxuu kaloo xubin ka noqday golaha sare ee jaamacadda Madiina. Ibnu Baaz wuxuu caan ku ahaa reebidda munkarka iyo faridda macruufka. Ibnu Baaz dadaalkiisa intaa iyo in la mid ah laguma soo koobi karo. Wuxuu alifay kutubo badan. Intaa iyo dadaalkiisa wuu sii waday. Cabdilcasiis ibnu Cabdullaahi ibnu Baaz ugu dambeyn wuxuu adduunka ka tagay asagoo 90 jir ah, wuxuuna ku geeriyooday dalka Sacuudiga 27 Muharram 1420 Hijriga, oo waafaqsan tirada miilaadiga 1999kii 13 bishii May. Waxaana janaasadiisa lagu tugtay maalin Jimco ah. Asaga wuxuu geeriyooday maalin Khamiiseed. Habeenkii uu baryay waxaa lagu tugtay maalin Jimco ah. Sidaa awgeed wuxuu helay jameeco aad u tiro badan oo ku dukatay. Allah u raxmado hal doorkeeni Imaam Ibnu Baaz.